asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawow janal kenen ala baynu kaga hadalno arrimaha caafimaadka iyo sayniska waxaynu ku dul istaagnaa kolba xanuunada aynu isleenahay bulshadeena waxa weeyaan u muhiim iyo taariikhaha aynu isleenahay waa in la xasuusiyaa channelkan haddii aad ku cusub tahay sidii caadada ahayd subscribe garee gambaleelkana taabo iyaanu ku dhaafine dadka kalena gaadsii barnaamijka maanta aynu ka hadli doonaa waxa weeyaan qeyb xanuunada ku dhaca wadnaha ah oo loo yaqaano ventricular rhythmka ama garaaca wadnaha qeybta ventricleska kuwa la yidhaahdo oo khalkhala qeybta koobaad waxaynu eegaynaa ventricular tachycardia qeyb la yidhaah oo halkaa imika waxaa yalowga ah uu kasoo muuqanayo garaac ka duwan kii normalka ahaa uu ka bilaabmayo dabadeedna uu xawaaraha kordhinayo wadnaha si aanu ugu shaqaynin sidii normalka ahayd marka waxaa la yidhaahdaa vtag ama waxaa la yidhaahdaa ventricular tachycardia dabadeedna garaaca aad arkaysaan inuu ka ziyaaday sidii normalka ahayd ayuu wuxuu u muuqanaya marka a c g-ga la eego waxaa ballaaranaya q r s kii qaabkii ay u shaqayn jireen ee normalka ahaa si ka duwan buu noqonaya qaabka imika idinku muuqda ventricular rhythmka qeybta labaad waxaanu kaga hadli doonaa ventricular fibrillationka ama vvib waxa la yidhaahdo oo iyadna ah qeybaha kala duwan ee aad arkaysaan oo aan meelihii normalka ahay garaaca wadnuhu uu ka iman jiray aan ahayn ama electricitygu garaacaasi oo ziyaadaya fibrillation sameynaya taasi oo aanu u dulqaadan karin wadnuhu si uu jidhka u gaadhsiiyo dhiig ku filan marka a c g-ga loo fiirsadana waxay u ekaanaysaa qaabkan ama qaab lamid ah oo la waayayaba habdhaqankii q r s uu samaysnaan jiray iyo qaababkii lagu yaqaanay caadiga ahaa ee afka yuuban lahaa ee aarta lahaa ee kala duduwana marka ventricular fibrillation marka aad ku arkayso marka qaarna waxba laga yaaba inay falaad